roobab dabaylo wata oo 24 saacadood ay la soo dhaafay ka da'ayay deegaana ka mid ah degmada Boon iyo isla gudaha degmadaasi ayaa waxay roobabkaasi saameyn baan ku yeesheen dhismayaal badan oo ku yaala gudaha degmadaasi kuwaas oo dhulka gabi ahaanba dhigay ayaa sidoo kale roobabkan dabaylaha wata waxay saameyn baan ku yeesheen isku socodkii guud ahaanba degmadaasi halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan roob xalay ka da'ay degmada Boon oo magaalada aad uga da'ay horta roob in laga cawdo ma waxay ka mid yihiin arsaaqda Ilaahay laakiin se waxa jira mid balaayo yar hoosta ku wata Ilaahay anaga mariyo xalay khasaaro weyn buu u geystay degmada magaalada Boon u geystay guryo badan way dumeen deerar badan way dumeen wixii la dhulkay wada yaaliin geedihii uu gumaaday oo kunta soo wasaaray sagaaliya 20 kuwa yare maaragtay afar toban waxay danyar sugasho iyo jiingadaha sanduuqada 15 iyo dhowr guriyo deerashoodii oo baabashay kuwa uu jiingada ka qaaday intuu isku jiraan marka dadka ku barakacay dabaylaha iyo duufaantii xalay ku dhifatay degmada Boon ayada waxaan ogeysiinaynaa ayada afooyinka iyo kortiga mas'uuliyiin inay dadka wax u qabatay degdega wax u